jimco wanaagsan galab wanaagsan mar kale dhageystayaal sidaan hore u sheegayba doodeena jimcaha ee galabta waxaan ku faaqidi doonaa khilaafka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ka dhaxeeya wuxuu salka ku hayo hadii uu khilaafkan yahay mid siyaasadeed iyo mid sharciyadeed iyo sidoo kale waxa soo celceliya khilaafka u dhaxeeya madaxda iyo ra'iisul wasaarayaasha Soomaaliya ma dastuurka Soomaaliya ayaa mashaakil ah oo ay wax ka qaldan yihiin mase siyaasiyiinta ayaa ishaya barnaamijka waxa martii igu ah oo nagala qayb galaya Cabdirasaaq Maxamed Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday ahna wasiir hore iyo Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo isna xildhibaan ah oo wasiir horena ah iyo garyaqaan Sakariye Yuusuf oo xubin ka ahaa guddigii khibrada ahaa ee ka tala bixinta qabyo qoraalka dastuurka Soomaaliya mudanayaal saddexdiinaba ku soo dhawaada barnaamijka waa mahadsantihiin su'aasha ugu horeysa oo aan idin wada weydiinayo marka horeba saan barnaamijka bilowgiisaba aan isu la fahanno khilaafkan hadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u dhaxeeya maxay idin la tahay inuu salka ku hayo waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Maxamed Cumar bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsantahay runtii su'aashu waa su'aal aad u wanaagsan marka hore waxaan rabaa inaan salaamo saaxiibaday iga qayb qaadanaya doodan xildhibaan Zakariye labada Zakariye waa salaamaya waxaan rabaa khilaafka sida aniga igula muuqato wuxuu salka ku hayaa horta wuxuu ku bilowday arrin sharci wuxuu ku bilowday qof muwaadin Soomaaliyeed ah oo muddo 3 bilood hadda ku dhow la yahay oo hay'adihii amniga laga sugayay inay warbixin mug leh lagu qanci karo ay ka soo gudbiyaan nasiib darro warbixintii ay soo gudbiyeen ma ahayn warbixin qancisay dadweynaha Soomaaliyeed ma aysan ahayn warbixin uu ku qancay ra'iisul wasaaraha sidaa darteed ayuu horta khilaafka ku bilowday laakiin hadda waxaa moodaa in arrimo dastuuri ah iyo arrimo siyaasadeed inuu u gudbay marka su-aashaada ahayd ma arrimo sharci buu ahaa mase arrimo siyaasadeed arrimo sharci inuu ku bilowday ayaa ii muuqato laakiin uu usii gudbay arrimo siyaasadeed waa mahadsantahay Cabdirasaaq xildhibaan Sakariye Maxamuud adigu maxay kula tahay khilaafkani muxuu salka ku hayaa fiican buu dhigay waxa weeye wax yar baan ka duwanayo khilaafkaani asaaskiisu waxa weeye siyaasad waayo gabadha Ikraama Allah u naxariistay arrinteedu waa crime waa dambi la galay oo qof muwaadin oo Soomaaliya la dilay hay'ada ayaa ku shaqale baarista qofka la dilo madaxweynaha ra'iisul wasaare shaqadood maaha muxuu ahaa CID ga jirtay arrimaha hay'adan booliska ka tirsan baa loo qaabilsan muxuu ahaa arrimahaas oo kale inay baaraan iyagu dabadeedna maxkamad la geeyo xeeraarinta loo gudbiyo ciddii muxuu ahaa falkaas kun samaysay in maxkamadda lasoo taago waa intaa inay dhaafto maaha waxa isu geeyey madaxweynaha ra'iisul wasaare waxaan u haystaa inay tahay siyaasad tahay waana sidaad u sheegteen oo anigu dowladda Cabdiqaasim aan wasiirka ka labada jeer wasiir ka noqday Allah naxariista Cali Khalifa ra'iisul wasaaraha iyaga ahaa iyo madaxweynuhu waa dirireen Cabdullaahi Yuusuf iyo muxuu ahaa Nuur Cabdi Allah naxariista waa dirireen Sheekh Shariif oo ka dameeyay xildhibaan Sakariye ra'iisul wasaarayaashii iyo madaxweynayaashii isqabsigoodina si fiican uga hadli doonaa waa pattern bay noqotay arrin iska soo noqonaysa oo la yaab la weeye waxaana sababo waa la yaqaanaa waxa weeye muxuu ahayto xulkii hoggaanka Soomaaliya ama hoggaamada bini'aadamku ay ku soo xushaan baa maqan muxuu ahayto labada nin oo hadda meesha joogta oo farmaajo iyo Rooble waa laba nin oo farsamo yaqaan waa injineer waa xisaabiye marka waxaad moodaa siyaasadana waqti yar bay ku jireen muxuu ahaa waxyaalaha kale oo sababtoo ah waxa weeye dadka Soomaaliyeed aan dib u heshiisiin dhaba oo hoos ka soo bilaabatay waan ku soo noqonaynaa marka Sakariye arrimahaas oo dhan waa u imaanayna waayahay garyaqaan Sakariye Yuusuf labada xildhibaan waxaad uga duwan tahay oo ku muuqda ma jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim ana meesha waxaad soo fariiseen xagga qaanuunka iyo khilaafka qaanuuneed ee labada hogaamiye madaxa oo qaranka iyo madaxa xukuumadda
haddii aynan qodobkaasa laisku haystaa qodobkaasa laisku haystaa aynan waa u imaanaynaa marka sakriye waa u imaanaynaa garyaqaan sakriye waan kuu soo noqonaynaa qodobadaasna waa u imaanaynaa laakiin xildhibaan cabdirasaaq maxamed yuusuf maxamed cumaraan rabaa inaan ku noqdo oo aan weydiiyo xildhibaan sidee u aragtaa dooda xildhibaan sakriye ee arrintani sharci markeedii horeba kama bilaaban ee labada xafiisba hoola aan shaqadoodii ahayn ayay gacanta la galeen oo howsha bilowgeedii iyo dhammaadkeediiba waa siyaasad doodaa maxaa ka leedahay waa mahadsan tahay marka hore magacayga waa xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed waaye waa isdimaarisay maxamed cumar ma aha waa cabdirasaaq cumar maxamed marka xigta waxaan rabaa zakariya runtii yani waa aada ayaan uga duwanahay sababtoo ah qofka muwaadinka ah marka la waayo wuxuu xaq u leeyahay in muddo kooban yani report lagu keeno hay-adaha uu sheegayo oo la rabay inay baaraan wax baaritaan oo ay sameeyeen ma jirin midda kale yani waalidiintii iyo dadkii u ololeynayay familiga ikraam nafteeda inay cadaalad helaan waxay awoodi waayeen inay maxkamadaha tagaan oo ay dacwad geystaan ayay awoodi waayeen waxaa kaloon rabaa xildhibaan zakariya inaan xasuusiyo hay-adda fulinta waxaa mas-uuliyadeeda ugu sarreysa saaran yahay waa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarahana arrin siyaasadeed ma ahe waa waajibaadkii shaqo ee saarnaa inuu la xisaabtamo haddii kale qofka lala xisaabtamayo berito oo accountability in loo faysgaraynayo ama yani lagu qabsanayo waa ra-iisul wasaaraha marka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha khilaafkooda kama bilaabo arrin siyaasadeed anigu ma arko waxaan u arkaa inay ka bilaabatay arrintaasna waxay ahayd sharciyan waxaa iska lahaa shaqada waa shaqa ra-iisul wasaare ayay ahayd marka yaan laga dhigin yani ra-iisul wasaaraha inuu faragashtay meel uusan shaqo ku lahayn waa waajibaadkii shaqa ee dastuuriga ahaa ee saarnaa ayuu qabanaya marka meesha saasaan arrinkaasaan kaga gedisanahay xildhibaan zakariya waaya xildhibaan zakariya waa u tegi doonaa laakiin weydiintiisa soo jeedintiisa iyo oraahdiisu waxay ahayd arrimahani arrimo hay-ado maxkamadeed iyo hay-ado dembi baaris u yaallay ahayd ma ahayn arrin ra-iisul wasaare iyo arrin madaxweyne u taal taa ma waxaad u aragtaa inaysan saxayn zakariya dee ma uusan sheegin hay-adihii maxkamadaha iyo hay-adihii amniga ahaa waxay ka qabteen muddo 3 biloodana ma uusan sheegin ma og tahay marka zakariya aan siino marka haddii ay taas noqoto xitaa hay-ada fulin bay noqonayaan hay-adaha fulintana waxay la timaadaan ra-iisul wasaaraha oo qofka ugu sarreeya oo hawshaas geli kara waa asaga waaya xildhibaan zakariya waad maqlaysaa marka dooda maxamed isaaq hay-adaha ka hadlaysa ee aan ahayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare ee arrintaa awoodda u lahaa dunuubo waaweyn baa dalkan ka dhacay madaxweynehi ra-iisul wasaare iskuma qabsan kasoo bilow markii la dhiibay ninkii soomaaliga ahaa etoobiya loo dhiibay jabhadii xoreynta soomaali galbeed oo iyaguna waa argagixisan la yiri ha laakiin hadda midan taagan ugu soo noqonaa tan hadda taagan xildhibaan sharci darraa lagu riday ra-iisul wasaarihii xasan cali khayroos sharci darraa lagu riday waxaasoo dhan xildhibaan zakariya ra-iisul wasaaraha in sharci darra lagu riday dad xildhibaano badana kugu diidi karaya tan noo soo celi hay-adaha aan ahayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha awoodda u lahaa su-aal baa iweydiisaan dhameeyo su-aasha aan dhameeyo waxa weeye hay-adda dambi baarista dalka dawladdu waxay leedahay furuuc bay leedahay nimanka siyaasiyiinta oo kor joogaa waxay leeyihiin hagid iyo arrimo muhima waxaa hadda noo yaala doorashadii oo dalkao dhan mustaqbalkiisu saaran yahay dawladda tani waktigeedii waa dhammaaday waxaa laga rabaa ugu muhiimsan waxa weeye inay doorasho keento arrintaas waxaa la rabay in loo daayo hay-adahaas hay-addii ka bixi weydana in markaa magacyada hay-adahaas noo sheeg sida uu xildhibaan cabdirasaaq kuu weydiiyey adeerkeed baan dhegeysta anigu hooyadeed iyo adeerkeed baan dhegeysta oo la wariyaan gabadheeda arrinteeda la siyaasadayn ee halaga daayo siyaasadda waa runtood arrin siyaasadeed maaha arrin farsamo weeye arrin baaris weeye inay xaqeeda hesho xildhibaan zakariya waxaa inoo sheegtaa hay-adaha kale ee dowladda ee arrintaa shaqadoodu ay ahayd sida uu xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamedba kuu weydiiyey aan aniguna kuu weydiiyey inoo sheeg hay-adaha kale ee dowladeed ay ahayd inay arrintaa galaan ee aan ahayn xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kow c I d da weeye hay-adda adduunka dhan c I d baa jirta oo dembigaan oo kale markuu dhaco hay-adda booliiska oo dembi baarista ayaa kow ah hay-addaasi markay soo ogaato waxa arrintaani ku dhacday waxay u gudbinaysaa xeer ilaalinta qaranka xeer ilaalinta qaranku kayska iyadoo haysa maxkamaday geynaysaa maxkamadda waxay ku cadaynaysaa dadkii aan dembigaan galay
waa la soo xirayaa maxkamadaa soo xiraysa dariiqaasay martaa dariiq siyaasadeed maaha maxaa siyaasadda ugeeyey xilal waaweyn oo muhima oo dalkaani muxuu ahaa khatar gelayo haddii laga leexdo baa labada nin hayaan inay ku mashquulaan muxuu ahaayeto hay-ado siyaasi hay-ado muxuu ahaa farsamo iyo dambi baaris shaqa ay leeyihiin ma ahayn waxay ka bixin karaan oo keliya tawjiihaad bay ka bixin karaan shaqadaa hala qabtay dhihi karaan laakiin iyagu maaha inay qabtaan shaqadooda maaha haye garyaqaan sakariye yuusuf aan u tagno garyaqaan sakariye waad maqlaysaa labada xildhibaanba doodooda ah maxaa la yidhahdaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu arrinka inaysaba u oolin oo aysan shaqo ku lahayn iyo dooda ah maya ayaga iska leh oo mas-uuliyadda iyo arrimaha ka dabategeeda wax ka leh sharciga iyo markaa arrimaha fiirisid inooga waran marka okay bismillahi raxmaan raxiim horta mas-uuliyadda markii hoos loo daadegana way caddaho c I d da iskale laakiin c I d da ma baraanti oo dawladda governmentiga ka baxsanaa oo keligeed meel iska taagan mase waa boordiga c I d da wuxuu hoos tagaa taliska booliiska muxuu hoos tagaa wasaaradda arrimaha gudahana ma waxay hoos tagtaa ra-iisul wasaaraha sidaas ayaan qaanuunka ku naqaana oo noogu cadda marka xildhibaan zakariya saaxiibkay samigay inuu yiraahdo ma aha saas ee waa la siyaasadeeyey xilka iyo waajibaadka dawladday kamid tahay c I d dana baraanja keligeed arka taagan ma aha marka waa hawshii loo idmaday oo loo dhaariyey ra-iisul wasaaraha inuu qabto sidaas xaq wuxuu u leeyahay ra-iisul wasaaraha hay-ad kasta ee hoos timaada hay-ad baa iskale hay-adaasi waa inay shaqadeeda qabsataa boliisku wuxuu hoos yimaadaa information boliisku wuxuu hoos yimaadaa wasaaradda maxaa ahayto amniga ayaa iyaduna shaqa kule oo soo gelaysa iyo wasaaradda arrimaha gudaha labadaa wasaaroodna waa soo gelayaan inay intaas soo dhaaftaba maaha nimankaan shaqaa u taalla xoog leh oo qarannimadii Soomaaliyeed iyo dawladnimadii Soomaaliyeed okay xildhibaan sakariye fursad u sii warka hadda maystay okay xildhibaan sakariye waan ku imaanaynaa garyaqaanka fursadiisa sii hay garyaqaan wado waxa waaye in c I d da waxay hoos tagtaa booliiskana wuxuu hoos tagaa wasaaradda arrimaha gudaha marka sharciyan wax ku qaldan ma lahan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu arrimahan inay galeen oo gacmaha la qaldeen ra-iisul wasaaraha iskale inuu wax weydiiyo wax ogaado baaro la hadlo iyo keeno yiraahdo aan ogaado yiraahdo waa waajibkiisa madaxweynuhu waxay ahayd inuu soo dhexgeli karaa qaanuunka sida uu tilmaamayo haddii ay ra-iisul wasaaraha ka tambato ma ahayn madaxweynuhu inuu soo dhexgalo waay aada umahadsantaha labada xildhibaanba hal su-aal oo isku wada midaan idin weydiinaya oo soo wada hadal qaadeen hay-adda dambi baarista ee c I d da ee xildhibaan sakariye u arko inay arrintan ayada inay maamushaheed ilaa hadda wax war ah iyo wax hoolaha ay wado waxaan maqalnay oo kor loo yiri ma lahan hoos haddaanan aysan shaqo hoos soo qarsoon aysan socon marka maxaa ku dhaca hay-adaha naftooda maxaan u arki laanahay maxaan siyaasiyiinta iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha keliya u arkeenna sideedaba hay-adda dambi baaristu dembi markii la baarayo joornaalla kuma soo qorto idaacana kama sheegto waxaa loo baahan yahay dembiga isagoo sakarada in muxuu ahayto la baaro sababta waxa weeye haddii idaacada laga sheego waxaa muxuu ahayto baaba-aya raadadkii baa baaba-aya dad baa ka muxuu ahayto ka xeelaysanaya adduunka oo dhan sidaa weeye xildhibaan sakariye wayse sheegi karaan inay kiiskaa gacanta ku hayaan soo maaha shaqada inay qabatay iyadaa laga rabaa cidda qaban weydana markaa ra-iisul wasaaruhu waa la xisaabtamaya waa run ra-iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay xisaabtanka hay-adda shaqadan iskale ayuu leeyahay okay marka waa in hay-adda lala xisaabtamaa la yidhaahdaa shaqadan maxaa u qaban weydeen hadday qaban waayeen hadday ku jiraanna inayo sidaa weeye xildhibaan cabdirasaaq hay-adda maxaa ka leedahay maxaa loo salugsan yahay muxuu ra-iisul wasaaraha iyo u sugi waayey oo hay-adda dambi baarista c I d da hoosha ayada looga hari waayey walaal su-aashaas waa su-aal muhiim ah waxaa moodaa zakariya inuu yani meel cidlaa iyo waxaan jira inuu ka hadlaayo wuxuu yihi waa la siyaasadeeyey case qof muwaadina oo Soomaaliyeed oo muddo 3 bilood laayahay ayuu wuxuu leeyahay waa la siyaasadeeyey oo hooyadeed iyo aabaheed baan ka maqlay zakariya waxaan rabaa inaan u sheego Dr. Tahliil Faarax Axmed oo gabadha dhalay waa isku meel aan kusoo kornay dugsi quraan baan isla dhiganay isku galaas baan ahayn muddo 8 sano ah baan hal miis wada fadhinay habeen walba iyo maalin walbaan la hadlaa marka hay-adihii waa la siyaasadeeyey sababta waxaa ogahay dhibaatada iyo murugada haysata faamiliga ayaan ka warhayaa
yani hooyada dhashayna waa iyada hadashay oo u mahad celisay shaqada uu wado ra-iisul wasaaraha. wax la siyaasadee ma jirto, in muwaadin loo doodana siyaasadeyn ma aha. marka usoo noqo su-aashaydii marka xildhibaan oo Soomaali ah saaran. midaas haddaan ka baxo, hay-adda CID-da maxay u qaban weysay ayaa ah arrin siyaasadaysan. waxay u qaban weysay dadka amniga joogo, dadka lugta ku lahaa ikraam iyo yani dilkeeda oo culays badan saaray oo aan ognahay haddii wax siyaasadayna dadka siyaasadeey waa kuwaas, waa Fahad Yaasiin iyo inta la shaqaynaysa. Fahadna lama joogo kamana jawaabi karaayo eedaada hadda kayskan diidanayd ayaa mas-uuliyadaas iska leh. ra-iisul wasaaraha shaqadu qabtana shaqo fiican oo qof walba iyo dadweynaha Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin aan warka. marka waxa xildhibaan yani baaritaan waa samaysaa, weligeedna waa sheegi jirto, waa soo bandhigi jirta kayska meesha mara. maxay uga aamusan tahay? waa waxa u baahan maanta in la wada weydiiyo. Zakariya ha ka jawaabo waxay uga aamusan tahay, bal waa kaas. waayahay labadiina xildhibaanba waa mahadsantihiin. doodana aan wadano oo aan doodno annagoo aragtiyaheena soo bandhiganayno oo shakhsiyaad aan la gaari doonin. xildhibaan Zakariya, isla su-aasha xildhibaanka uu ku weydiiyey wax jawaaba ma u haysaa? wax ma ka dhihi kartaa? wallahi horta marka ugu horeysa waxaan rabnaa inaanu si muxuu ahayto ilbaxnimaha u doodno. laba xildhibaan baa nahay, maraabana waa nahay. marka cidlo jafahayaa iyo waxyaalahaasi mamnuuc weeye inuu yidhaahdo ma xildhibaanku. waxa weeye ra'yigiisu leeyahay, ra'yigayaan leeyahay. marka ugu horeysa arrintan sidaan u sheegay, looyarkuna u sheegay, waxaa iskale hay-addaas dambi baarista. sideedana qof la dilay idaacadana lagama sheego, joornaalana laguma soo qoro. kiisku waa kiis sensitive, dad bay khusaysaa. dadka ay khusayso inay cararaan ama ka faa'iidaystaan baa laga baqahayaa. adduunka oo dhanna waa sidaas. 1 2 anigu labada nin oo ishaysta midkoodna lama jiro. dhaqanka Soomaalida wuxuu noqday markii ra-iisul wasaare iyo madaxweyne diriraan ama ra-iisul baarlamaan iyo madaxweyne diriraan inay mid la saftaan. taasina dalka ku dhumahaya, maslaxadii guud baa ku dhumaysa. labadaba waxaan u arkaa inaysan shaqadaan lahayn. shaqo ka weyn oo qaran baa sugaysa. shaqadaas qaran oo weliba kaabiga saaran. waaya Zakariya, waa ognahay aragtidaada oo haddii ay sii socoto dalku khatar gelayo. waaya doorashada iyo saameynta ay ku yeelanayso waa u imaanaynaa. waa u imaanaynaa Zakariya, labadoodu shaqadaas ay leeyihiin. waa u imaanaynaa. laakiin hadalka xildhibaan Cabdirasaaq waxaa qayb ka ahayd inuu leeyahay dad kale oo siyaasiyiina oo saameyn leh oo arrinkan qayb ka ah ayaa jiro oo hay-addu sababtaas darteeda u geli la-adahay dambi baarista. taa maxaa ka leedahay? maya hay-addu waxay xaq u leedahay ciddii soo dhex gasha ciqaabteeda ay qaadanaysaa. hay-adduna waxa weeye iyada lafteeda in lagu ciqaabo la yidhaahdo shaqadan qofkan gabadhan la dilay shaqadeeda soo qabta xaq baad u leedihiin. cid dhex geli kartaa ma jirto, cid taaban kartaana kiiskaa ma jirto. ciddii taabatana waa cid dambiilayaal ay noqonaya. waaya marka hore aan uga soconaynaa qodobkaas. sida muuqataba kiiskii hadda ikraan iyo arrimaheedii wuu dhaafay. meelo kaloo waaweyn madaxdii ayaa qoortiis kula jira. shaqadii dowladda ayay arrinku uu saameynayaa. xilal baa la kala qaaday, kuwaa la magacaabay, kuwaa dooda weli ka taagan yihiin. waxaasoo dhan oo dhacaya aan u gudubno annagoo ku hormarayna marka arrinta kiiskan wixii ka dhashay oo ahaa maxaa la yidhahdayey ra-iisul wasaaruhu inuu xilkii ka qaaday agaasimihii ama taliyihii hay-adda sirdoonka Soomaaliya asagoo sharci adeegsanaya oo qodobo dastuur ah markaa warqadii xilka qaadista ku daray. sidaas si lamidana madaxweynaha wuu soo celiyey oo shaqadu u soo celiyey intuusan iscasilaad dib u ka sheegay madaxweynaha uusan aqbalin. isna qodob dastuur ayuu adeegsanayay. tusaale madaxweynuhu wuxuu adeegsanayay qodobka 87 iyo qodobka 90 ee dastuurka. wuxuu kaloo adeegsanayay qodobka 97 iyo qodobka 100 ee dastuurka. sidaas la midana ra'iisul wasaaruhu qodob buu adeegsanayay. waxa inoo sheegtaan marka labadiina xildhibaan anigoo idinku hormaraya qodobada la adeegsaday misidaasay qof walba ay ugu saxan yihiin mise qof baa ku qaldan? qodobada laftooda la siyaasiyey. qodobo waxa weeye xilalka madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu waa kala qeexan yihiin, dastuurkay ku kala qeexan yihiin. qof la dilay kiiskiisna kuma jiro. muxuu ahaay to ra'iisul wasaaruhu waa fuliyaha dalka weeye, isagaa fulinta iska leh. inuu dabagalo kiiskii sidaas oo kaleeta ah oo uusan laakiin gaarsiinin idaacado weeye oo uu hay-adda ku shaqada leh inta uu yeero marka Zakariya yaa ku qaldan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kala shakhsiyan
laakiin inay gaarto muxuu ahaa in qodobo dastuuriya la isticmaalo case muxuu ahaato crime ah waxa weeye meesha kuma jirto labadoodaba waa khaldan yihiin waayahay xildhibaan cabdirasaaq ii sheegayo siyaasadda malaha ku cusub nimankan siyaasad garanaya xildhibaan cabdirasaaq arrimaha waa mahadsan tahay anigu waxay ila tahay dee garyaqaanna waa nala joogaa wuuna ka hadlay marka ay noqoto hay-adda fulinta ama laanta fulinta dawladda waxaa mas-uuliyadeeda iskale ra-iisul wasaaraha isaga ayaa magacaabo isaga ayaa yacni wasiirada magacaabo isaga ayaa inta ka hooseysa mas-uuliyadiisa magacaabisteeda iyo xilka qaadisheeda isaga ayay saaran tahay in uu ka qaado xilka qof kalena u magacaabo waa waajib dastuuri ah oo isaga saarsan markuu intaas sameeyeyna ra-iisul wasaaraha uu ku saxsanaa aniga sida ay iila muuqato maxaa la yidhaahdaa laakiin jawaab celinta ayaa aniga ila qaldan oo madaxweynaha sababta oo waa ognahay dastuurka waxyaabo qodobo badan oo dastuurka ku qoran ayaa waxa ku jiro mugdi badan ma cadcaddo laakiin marka ay noqoto waajibaadka shaqa ee ra-iisul wasaaraha waxaa moodaa inay si cad ay ugu qeexan yihiin dastuurka qodobadiisa 97 inay tahan jeclahay oo uu leeyahay yani awooddaas uu siinaya ra-iisul wasaaraha marka ra-iisul wasaaraha aniga waxaan isleeyahay waa taxsanaya laakiin ficilkii ka dhashay iyo waayahay xildhibaan cabdirasaaq waa mahadsan tahay waxaan ku noqonayaa garyaqaan sakariye ayaan ku noqonayaa garyaqaan labada xildhibaan doodooda waad maqlaysaa warqadihii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kasoo kala baxay waad aragtay dastuurkana waxaad xubin ka ahayd guddigii qobarada ahaa ee ka tala bixinayay markii qabyo qoraalka dastuurka hadda soomaaliya ay adeegsanayso la diyaarinayay qodobada sidee isu waafaqayaan sideese ku kala duwan yihiin maxayse ka siman yihiin maxayse ku kala qaldan yihiin badanaaba soomaalida aada waxay uga doodaan ay ku soo celceliyaan macal xildhibaanada qaarkood laakiin xildhibaanada dhan uga dhaxayo in uu dastuurka uu abuurayo iska hor imaadiyada iyo isdiidanka inuu imaanayo maanta arar yar oo kooban raalli haddaad igaga ahaatid qaanuunka waa cilmi la barto cilmiga barka qofka barta cilmigaasitoodna cilmigaas qofka bartana ayaa garan karo meesha ay jiraan iyo sida loo fasirayo iyo sida loo sameynayo haddii siyaasiga uu damco qodobka siduu rabo inuu u fasirto waxa buuqa ka imaanaya halkaas waay sharciga wuxuu tilmaamayaa haddii qodob mugdi ku jira ama qodob kale inuu ka hor imaanayo ay cad tahay waxaa fasirayo isla garsoorka weliba maxkamadaas dastuurkaa tilmaamayso haddii ay sharciyada kale tahana maxkamada faraad fasirayso fasiraada keliya weliba looma daynina maxkamadihii xataa waxaa fasiraada ka qayb qaato fuqahada qaanuunka ayaa ka qayb qaataan oo culamada jaamacadaha wax ka dhigo iyo fuqahada si ay u noqoto ama miisaan ama xadidaad maxkamadu ay say rabta ina u samaynin oo ay kasoo dheedaan arrintaas yartaa waxaan uladan leeyahay badanaaba waxaa la soo celceliyaa qodobkana madaxweynuhu siiye qodobkan ra-iisul wasaaruhu siiye dastuurka ku may waa kala cad yihiin haddii aan fiirino tusaalaha ahaan oo ugu sahlan oo hadda aan soo qaadan karo madaxweynaha awoodiisa waxaa si cad u tilmaamayo qodobka ila fiiriya noo soo ururina marka ayaa tilmaamaya wax yar raalli iga ahaw aan dadweynaha wax u bayaaniyo haddii kale oo si siyaasi ah wax ii siisana aan iska aamuso qodobka 9aad farqadiisa oo haddii aad fiirisid c ama waa d aad fiirisid madaxweynuhu wuxuu xilka ka qaadayaa wasiirada wasiiru dowlayaasha iyo wasiir ku-xigeenada haddii lagu ekeyn lahaa galadka annagaa iska lahaan lahayn dadka khubarada dastuurkaa lahaan lahaa dastuurkaana wax isku diray dastuurkaana wax sameeyaa la dhihi lahaa laakiin fiiri meeshaan wuxuu leeyahay markuu soo jeediyo wasiirka koobaad madaxweynuhu condition uu ku xiran yahay waxaan laakiinka idhaa condition connon shuruud buu ku xiran yahay madaxweynaha tallaabo ma qaadi karo ilaa wasiirka koowaad oo soo jeedintiisa u arko waxba ma samayn karo waa awooddan waxaa la yidhahdaa waa awood limit ah aan soo aadno fadlan adigoo raalli iga qodobka 100 fiiriya bal awoodda ra-iisul wasaaraha
qodobka boqol awoodda ra-iisul wasaaraha waxay isu toosa ay u leedahay diintiri qodobka boqolaad xarafka ba ra-iisul wasaaruhu xilka iyo awoodda ra-iisul wasaaruhu wuxuu awood u leeyahay magacaabista iyo xilka qaadista xubnaha golaha wasiirada shardi kuma xirno malaha waa clear condition malaha sidaa haddii ay tahay marka ma aha in laisjahwareeriyo sidii la rabo loo fasirto awoodan waa awood ka yaxan cad qaanuunka uu siiyey ra-iisul wasaaraha inuu tallaabadaas qaado waxaa soo haray kaas wasiirkii waayo waxaa soo haray qodobka la yidhaahdo agaasimaha oo hay-adda nisa habeen dhaweedaa idaacaddiina ay wareysatay hay-adda nisa sideedaba walaalkii zakariya saaxiibkay iyo cabdirasaaq waxaan weydiin lahay maxay baarlamaanka soomaaliyeed ugu samayn waayeen hay-adda nisa shuruucdii lagu dhaqi lahaa ay ku dhaqmi lahayd oo loo waayo bylaws baarlamaankan ka soo baxa baarlamaanka maxaa loo samayn waaya marka dhibka meesha uu ka dhaca bylaws ma jiro sidaa daraaddeed agaasinka nabad sugidda ma agaasin rayid ahaa oo wasaaradda amniga hoos tagaayo mase waa agaasin ciidan oo hoos tagaayo taliska ciidanka madaxweynaha maamulaha haddii ay sidaas tahay hadda waxaan raacnay ogaada xeer la yidhaahdo xeer number 14 ee 1970 uu jideeyey golihii sare kacaanka uu saxiixay gudoomiyihii golaha sare kacaanka aana baarlamaanna la marin waana sharci difaacti ah sharcigaasaan raacayna haddii la yidhahdo madaxweynaha ayay hoos tegeen haddii la yidhaahda waxay hoos tegaysaa wasiirka amniga ay hoos tegaysaa la yidhahdana waxaan raacnay heshiiskii iyo axdigii lagu gaaray 2004 magaalada Nairobi ee lagu dhisay dowladda federaalka ah ee lagu heshiiyey in la siiyo National Intelligence Security Agency oo laga dhiga agency hoos tegayso wasaaradda hoos tegaysa ay tahay la hogaaminayana gudoomiyaha golaha wasiirada haddii ay saas sharciga noogu cad tahay awooddaas halka qaadista iyo magacaabista gudoomiyaha golaha wasiirada askale waayahay aad baad u mahadsan tahay garyaqaan sakariye yuusuf waa isu soo noqonaynaa martideennana waan ku soo noqonaynaa balse markan aan maqalno aragtida iyo weydiimaha dhegaystayaasha qaarkood magacaygu waa xasan xuseen xasan waxaan kasoo aragti dhibanayaa cadaado run ahaantii waa arrin aad looga xumaado in la siyaasadeeyo kiiskii gabadhi kamid ahayd sirdoonka qaranka Soomaaliya ee la waayay waxaana moodaa khilaafku inuu cirka isu sii shareerayo markii si loo fiiriyana waxa moodaa in tiimka madaxweyne Farmaajo ay markaas sidaha ku rogayaan in si cad loo baaro kiiskaasi gabadha Ikraan Taliil Faarax dhanka ra'iisul wasaarahana waxa moodaa inay cadaalada u helinayaan arrintiina markaan ay isku bedeshay siyaasadda inta ka sii weyn waxa inay madaxda ugu hore isku ceel qabtay waxaana haboon in khilaafka la dejiyo markaan meel la isku dagaal arintu ma joogto Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hadaan la kala roonaan roobmada waxa quman in markaan dhan kasta uu tanaasul muujiyo oo wax meel la isugu keeno si doorashada hore u socoto waxawaadan kulmiyaha wakiil oo joogtay magaalada Boorama hadaa reegay ka dhigto dooda jimciga waxay la tahay khilaafkan u dhaxeeya madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo iyo u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha rumaantii waa khilaaf dhalin kara inay doorashooyinka gaadin ku keeno sidoo kalena labada mas'uul waa khilaaf runtii saameyn ku yeelan kara in ra'iisul wasaaruhu meesha ka baxo rumaantii waxaan oran lahaa khilaafkaasi halaga foojinaado oo la iska daayo magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf oo joogta magaalada Muqdisho haddii aan aragtayda ka dhiibto mowduuca khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble runtii waa wax aad looga xumaado in mas'uuliyiinta ugu sareysay dalka ay ayagu dhexdooda iskhilaafaan waana arrin dib u dhigaysa horumarka dalka miyaanay ogeyn mas'uuliyadii loo igmaday miyaanay ogeyn in masiirka wadanka ayagu ay mas'uul ka yihiin aniga waxayba ila tahay khilaafkani waxa uu salka ku hayaa dastuurka waayo mid waliba waxa uu soo xiganayaa dastuurka runtii arrintaana waxa ay dib u dhig ku keenaysaa qowlihii doorasho ee socday iyo horumarkii laga gaari lahaa wadanka waxaana looga baahan yahay labada mas'uul in ay isku tanaasulaan khilaafkana xal waara laga gaaro waa mahadsantihiin BBC السلام عليكم magacaygu waa Cabdisalaam ka jooje waxaan ku suganahay galdogob gobolka Mudug khilaafka soo kala dhexgalay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble
anigu waxaan qabaa oo aan aaminsanahay inuu gar leeyahay oo uu wadada sharciga ku taagan yahay madaxweyne Farmaajo maadaama uu yahay astaanta qaran uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada oo asaguna uu ku lug leeyahay dhammaan hay'adaha amniga xilka qaadistooda ama xil ka dejintooda. Rooblana waxa uu u muuqdaa inuu ka beeray wadadii ahayd inuu dalka geeyo doorashooyin. Shimay waxa lagu wareejiyayna waxay ahayd dalka inuu gaarsiiyo doorasho iyo doorashadaas amnigeeda. Waxaana moodaa inuu hadda wadada kasoo beeray oo lagu orkacsanayo aysan daacad ka ahayn kiiskan uu sheegayo inuu u jirirayo Ikraan Tahliil. Cabdisalaan ka George wuxuu u dambeeyay dhageystayaashii codkooda iyo aragtidooda inoo soo duubay. aan ku soo noqono barnaamijkeennii iyo martida. mar kale martida waxaan leeyahay soo dhawaada. waxaan barnaamijka ka wadaynaa halkii aan ka aadnay codadka dhageystayaasha. waxayna inoo maraysay sharciga iyo dastuurka markii la eego awoodaha yaa leh xilka qaadista iyo yaanan lahayn. waxaan u malaynayaa labadiinaba inaad si fiican u dhageysateen aragtidii Sakariye Yuusuf garyaqaanka barnaamijka martida noogu ah. xildhibaan Cabdirasaaq iyo xildhibaan Sakariye soo dhawaada. Sakariye aan ku bilaabayaa. Sakariye, dastuurka markii la eego arrintan kiiskii khilaafka madaxweynaha hadda Ikraan iyo waa soo dhaafay, waxay maraysaa meelo kale. waxaa agaasimihii hay'adii sirdoonka ama taliyihii sirdoonka ama madaxii sirdoonka midka saxda ah oo lagu wacayaba ku doonaho noqday ayaa xilkii laga qaaday. ra'iisul wasaaraha qaaday, madaxweynahana waa diiday. sharciga inoo sheeg, dastuurka muddo u soo joogtay oo baarlamaan aan soo ahayd, yaa saxan oo awooddaa iska leh, yaansan lahayn oo awood dheeraad ah raadiyey. Soomaalidu waxay tiraahdaa qur-aanku fuan baa isku tuuqsatay. waxay kaloo yidhaahdaan 14 boqolkaan aqaan horta ma kaa akhrisanayaabaa ka horeysa. arrintaani waa sidaas. arrintaani arrin dastuuri ma. arrintaani waa crime, waa dembi dhacay oo qof la dilay. waxaa iskale hay-adaha in idaacad lala aado, in warqada laysu qoro, in dastuur laysku cuskado maahan. arrinku halkaas Sakariye wuu soo dhaafay. xildhibaan Sakariye arrinku halkaa wuu soo dhaafay. meeshuu joohay wado adeerikaada hadii su'aashayda ra'yigayga anaa la dhegeyso. nimankan waxaa saaran xil hogaaminta qaranka Soomaaliyeed, amnigii qaranka iyo dowladnimadii qaranka iyo muxuu ahaa amnigii dadka ayaa khatar ku jira isqabsigooda. dadka kan oo muxuu ahaa toqax iyo qabyaalad iyo qori iyo qaad iyo quudaro iyo weliba qarax iyo hadaal ku ranayay COVID-19 isugu darsameen ma qaadi karaan in la isku qabsado meel cid. waaya su'aasheedii aan kuugu celiyo xildhibaan Sakariye in arrin ahayd in loo tawjiihiyo hay'adaha iskale. waaya waa khalad, labaduba khalad weeye, waana ku khaldan yihiin. waxaana muhiim ah inay ka noqdaan oo heshiiyaan. hadday heshiin waayaanna baarlamaanka iyo dadka Soomaaliyeed baa maxkamadda noqonaya. waaya su'aasheedii aan kuugu celinayaa marka awoodda sharciyadeed ee xilka qaadista madaxa hay'adda sirdoonka yaa iskale. dowladdaani cidna xil kama qaadi karto hadda jirta, cidna xil ma siin karto. dowlad ku meel gaara weeye, shaqadeedaba maaha. shaqadeedu waxa weeye inay focuska saarto, xoogga saarto arrimaha amniga iyo muxuu nabadgelyada iyo arrimaha doorashada. bas wax kaloo laga hadlaa ma jiraan. waaya heshiis ma saxiixi karto. waaya xildhibaan Cabdirasaaq haye maxaa ka leedahay dooda Sakariye ee ah iyo weydiintayda? aniga waxay ila tahay dee awoodda iyo dastuuriga ah wuxuu siinayaa ra'iisul wasaaraha. sax waaye dowladdan waqtigeeda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa dhammaaday. maxaa la yidhahdaa anaga kula hadlayna xildhibaano ahaan yani baarlamaanka waqtigiisa wuu dhammaaday. vacuum si uusan u dhicin waxaa jira heshiis siyaasadeed oo la gaaray oo uu ra'iisul wasaaraha lagula wareejiyey xilka amniga iyo xilka doorashooyinka maalin dhaweyd waa la socotaa. midda kale ra'iisul wasaaruhu asagoo waa caretaker waaye, waa kusima, waa siihayaha dowladnimada ilaa yani doorashada ay ka dhamaanaysa. xitaa markii madaxweyne cusub lasoo doortay inta aan ra'iisul wasaare cusub la dooran, xilka iyo mas-uuliyadda dowladda waxay saaran tahay ra'iisul wasaaraha. dastuuriyan asaga ayay yani ayaa mas-uuliyaddaas ay ku dhacaysaa. waajibaadkiisa shaqa ayay ka mid tahay. asaga ayaana ah qofka keliya ee xaq u leh inuu xil qof ka qaado iyo xil inuu qof u dhiibo. asaga ayay mas-uuliyadda saaran tahay. madaxweyneysan saarnayn, cid kaleetaysan saarnayn. aniga sida dastuurka uu qabo dowlado badanna waa la soo shaqeeyey oo yani xilal badanna waa kasoo qabtay. sidaas ayaana wax lagu soo waday. arrinta ah yani in yani dowladda amnigeeda iyo kala guura dhacaya iyo waxba balaaya dhacayso, waxaasoo dhanna haddii aad fiiriso dhaqankii diinta islaamkana waa og tahay rasuulku inuu yidhi
kacbada oo la diliyo waxaa ka qiimo badan ka adag ka weyn in naf bini aadan la qaada ayaa ka weyn. ra-iisul wasaaraha tallaabadu qaada waa tallaabo sharci ah, waa tallaabo diini ah, waa tallaabo dhaqanka soomaaliyeed wanaag u horseedaysa, asaga ayaana sax ku ah. waa mahadsan tahay xildhibaan sakariye. garyaqaan sakariye yuusuf samiga su-aasha uu labadiina idin weydiiyey waxay ahayd hay-adda sirdoonka ma hay-ad rayid baa oo wasaaradda amniga iyo hoos tagaysa, mise waa hay-ad sharcigii hore ee hay-addii nabad sugidda lagu dhisay ku dhisan oo hay-ad ciidan oo madaxweynaha hoos tagaysa? ogaalkiina iyo aqoontaada markii loo eego maxaad uga jawaabi lahayd weydiintaas? waxaan ku waafaqsanahay sida uu sheegay, hay-ad sharciyad haysata ma laha. hay-ada marka la dhisayo waa in establishment act wax la yidhaahdo, sharci in baarlamaanka loo horgeeyo waaye. anigu waagaan wasiirka ka ahaa waa ogaa hay-addu sharciga ay haysatay wuxuu ahaa waagaas kii sharci number 14 oo 72 la sameeyey. waa dekreeto hal page ah, qofkii arkay oo akhriyey. waa dekreeto ku saabsan yani la jaan qaadaysa waqtigaas oo aan ku jirna waqti military. hay-addana saas baa loo dhisay iyo in yani runtii dadka lagu caburiyo lagu ciqaabo. anigu markaan wasiirka ahaa hay-adda ee markaas jiray waxaan weydiiyey inuu soo qoro sharcigii hay-adda si aan baarlamaanka u geyno. waktiga aan anigu meesha joogayna 2 sano ahayd, waktiga oo iga dhamaada darteed ma aysan suurtagelin inaan yani sharcigii aan meesha keeno. 4 sano oo aan xildhibaanka ahaa waxaan qayb ka ahaa guddiga amniga iyo arrimaha gudaha. waxaan dhowr mar u yeernay wasiirka, waxaan dhowr mar u yeernay oo noo imaan waaye taliyaha hay-adda nabad sugidda, annagoo mar walbana waana record garaysanta, annagoo mar walbana ka dalbanaynay sharciyeyntii hay-adda lagu sharciyeyn lahaa. sharciga hadda ay haysato waa sharcigaas uu sheegay garyaqaan zakariye. yani mana aha marka ma hay-ad hoos tagta madaxweynaha iyo xafiiska madaxtooyada mise waa hay-ad wasaaradda amniga hoos tagta? aniga markaan joogay dee hay-adda aniga ay hoos imaan jirtay oo mas-uuliyadeeda isaarneyd oo igu soo riboodgarayn jiray taliyaha. laakiin 4 sane dee ma aaminsanay in wasiirku uu awooddaas lahaa, sababtoo ah mar haddii wasiirka qofka hay-adda haysta uu ka awood badan yahay wasiirkii ma aysan dhicin in anaga ma hayno meel ay qofkaas uga awood badan qofka aan u dhahno. mayde waa realityga ma aha moogtahay, in iska indhatira ma aha moogtahay. meesha waa joognaa xaaladeeda iyo wax walbana waa la ogyahay. ma ahayn haddii uu awood leeyahay wasiirka waktigaas joogay oo aan la hadalnay oo aan dhahnay hay-adda sharcigeedii keenna wuu keeni waaye. marka sidaas bay ahayd. aniga markaan joogay oo aan wasiirka ahaa waktigii madaxweyne xasan sheekh maxamuud, aniga igu riboodgarayn jirtay, aniga ayaa yani la xaajin jiray, aniga ayaa yani ka warhaya activitygeeda, qaladaadkeeda iyo wixii kaleetaba aniga ayay igu soo dhacaysay. laakiin hadda ma ahayn mid kusoo dhacaysa qaladaadkeeda wasiirkii jooga markaas. waayahay xildhibaan sakariya u tagaynaa. xildhibaan sakariya isla su-aashaa waaye, ogaalkaaga iyo fahankaaga iyo waayo aragnimadaada baarlamaanka iyo dowladnimada soomaaliya muddadaa ku hoos jirtay ku dhex jirta oo ka soo shaqaynaysay, maxaad uga jawaabi lahayd weydiinta garyaqaanka sakariya ee ah hay-addu ma hay-ad rayad oo wasaaradda amniga hoos tagtaa oo axdigii 2004 ku dhisan, mise waa hay-ad ciidan oo madaxtooyada hoos tagta oo ku dhisan xeerkii hay-adda nabad sugidda markii horeba lagu dhisay? horta nabayo doodii waa naga khariibteen oo annagu meel saraan ka hadlaynay, laakiin hadda waxaad dhex gasheen waxyaalo yaryar oo inafisa. waxaan ka hadlaynay dal iyo dawlad muxuu ahaa kasab dul saaran oo khatar ku jira. waxa hadda labadooda isu haystaana waa waxa weeye yani iyagii baanu noqonay hadda anagu. waxa weeye anigu 30 sano siyaasadda Soomaaliya ku jira. ma aanan arag weligay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isku haysta qof la dilay. adduunkana kama dhacdo halkaana maanta ugu horeysa. waxaana keenaya jidka khaldan oo labadaas oday oo dalka kale inay hogaamiyaan ay ahayd ay mareen. waana inay ka soo noqdaan, waana ku khasban yihiin inay ka soo noqdaan. hay-adda tani waxay hoos timaadaa anigu inta aan ogahay waxa ciidamada ku saabsan oo dhan qodob dastuuriyaa jira oo ah inay madaxweynaha hoos yimaadaan,
isla markaa hay-ad amni weyaho wasiirka amniguna kama maqna oo waa xasab in wasiirka amniga uu ku yeesho muxuu ahaa maadaama amniga guud oo dalka Soomaaliya laakiin isaga u dhaxeeya madaxweynuhuna wixii ciidana isaga ayaa muxuu ahaa maamula laakiin halkaasba in la aadama meeshaasba arrintu ma jirto waxay jirtaa gabar la dilay oo dambi laga galay oo ay ahayd hay-adaha muxuu ahaa ku shaqada leh inay wadaan hawshaas oo hoos loo dhigo weliba aan muxuu ahaa tiibiye laga sheegin oo laba inoo dalka ugu sarreyso shaqada muhiimka laga rabay qarankan yiri halkan nafa waxaa ka muhiimsan malaayiin nafa sidaa hadda ay wax ku wadaan waxa weeye in dagaal ka dhaco waddankoo dhan in magaalada xamar lagu diriro in ciidamadu kala jabaan waxaasoo dhan bay dabada ku haysaa arrintai hadda samaynayaan mana ahan in qof la eexdo anigu farmaashana xil kama rabo rooblana xil kama rabo muwaadin Soomaaliyeed baan ahay oo dalkaan u dhaartay oo shacbiga mas-uulka ah waxa weeye shacbigaan in la geliyo awalba dhib wixii aan hadda ka sheegayo oo dhan ku jiray in dhib la geliyo nimankii madaxda ahaa ay dhib geliyaan maahan oo shaqadooda ay ka leexdaan okay aad baad umahadsantahay Sakariye doodeena aan wadano weydiimaha meesha yaala ee muhiimka ah arrintan la xiriira waxa kamid ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu inay isqabsadaan waxay noqotay dhaqan 20kii sano u dambeeyay markaad eegtid dawladii ugu horeysay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan saddex madaxweyne magacaabay tii ku xigtay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf saddex ra'iisul wasaare ula jeeda tii ku xigtay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf saddex ra'iisul wasaare magacaabay tii ku xigtay Sheekh Shariif saddex ra'iisul wasaare maxaa la yiraahdaa Sheekh Shariif laba ra'iisul wasaare saddex ra'iisul wasaare Sheekh Shariif magacaabay Xasan Sheekh saddex magacaabay hadda madaxweyne farmaajo laba ra'iisul wasaare intaasna khilaafkan wuu taagnaa lamana xaliyo maxaa soo celceliya madaxda iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu mar walba inay goradda isla galaan oo iskhilaafaan oo isqabtaan maxaa soo celceliya oo dhaqan ka dhigay labada xildhibaan ayaan ku bilaabayaa xildhibaan Cabdirasaaq waa maadsantahay aniga waxay la tahay dee waxaa qayb ka ah dabcan dastuurka oo aan mugdi badan uu ku jiro dastuurku wuxuu ka kooban yahay 15 cutub waa la socotaa 10 ka mid ah waxaa la rabay in lagu sameeyo dib u eegis ilaa ay haddana dib u eegistii ma aysan soo dhamaanin oo inta la soo waxay wili baarlamaanka lama horteedin haddii la keenan waxay u baahnaan doontaa dabcan afti dadweyne u baahnaan doontaa qayb waa qaybta dastuuriga ah oo isku qabashada waxa keenaya waxa waaye waxyaabo badan baa isku qasan isku soo laabanayo u baahan in la kala cadeeyo lamana waxayn karo dastuurka aan haysano waa professional oo waa ku meel gaar oo ilaa yacni la finalize gareeyo dib u eegisi soo dhamaato aftideedna loo qaado ma dhamaystirno qaybta kalena waxa waaye de structure-ka dawladnimada iyo nooca aan qaadanay oo ah ma dawlad prime ministerial oo awoodda siinaysa prime ministerka ama dawlad presidential oo awoodda siinaysa madaxweynaha ama dawlad parliamentarian aha midda aan nahay si fiican uma caddo wixii waxaa moodaa mid hybrid inaan haysano isku qasan oo labadiiba awood siinayso marka aniga waxaan isleeyahay ilaa arrimahaas la saxo iska qabashada salka waxay ku haysaa arrimahaas ayay salka ku haysaa ilaa la saxana yani waa sii socon doontaa oo isqabsiga wax joogsadaayo ma aha laakiin mar walbo la isqabsado dee yani waxaa loo noqon jiray caqliga iyo in yani la isqabto la isqanciyo taasna hadda mid ii muuqata maaha Sakariye marka xildhibaan Sakariye isla su'aashaas maxaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay iskhilaafaan 20kii sano la soo dhaafay dhaqan ka dhiga oo soo celceliya oo aan waxba looga baran kuwii hore 20kii sano waa jirtay 60kii sano aan dawladda ahaydna waa jirtay waxaana sababa Soomaalidu sharci kuma dhaqantay qabiil bay ku dhaqantaa laba qabiil baa dalka Soomaaliya min 60kii ilaa maanta isaga dhigay labada kursi iska leh dadka Soomaaliyeed waxba kuma laha dadka Soomaaliyeed qaar baa la yiri waa haaf waxa khaldan systemka maxaa barnaamijka siyaasadeed aan ku shaqeynaa khaldan dadku inay muwaadiniin wada ahaadaan intaas baa wax lagu qaban karaa tan labaadna waxa weeye qabiilku waa sii xoogaysay dagaal baa dhacay dagaalkii dib u heshiisiin lama gelin lagama soo bilaabin hoos waxa weeye nin walba reer hebel baan ahay buu isla buurahayaa arrimahaas oo dhan baa horta meesha wax ka qabtay waa halkaa dabcan arrinta dastuurku waa jirtaa in dastuurkaani uusan dhamaystirayn oo muxuu ahaa markii hadda la samaynayana indagaasi lagu samaynayo kasoo bilaabanayay de gabre iyo ragaad garanaysaa nimanka tigreega ahaabaa lagu dhex jiray qaar samaynayay lafagurid badan buu rabaa
laakiin xataa haddii kitaabka qur-aanka haddii soomaaliya loo keeno kuma dhaqmayaan waayo wax ka weyn bay ujeedaan oo iyaga la weyn oo qabiil ah waxay yidhahdaan fiqibahdi kamarkii la tago macnaheedu waxa weeye aayaddii qur-aanka ahayd buu dhinac maraya marka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isqabsigooda waxay kula tahay waxa soo celcelinaya ma ahan siyaasad iyo ma ahan mashaakil dastuure waa habdhaqanka soomaalida iyo habdhiska bulshada soomaalida waka kaas baa sababta ugu weyn kaa weeye waxyaalaha kale oo dhan waa waxyaala laga adkaan karo waxa weeye wax yani dadka qaarna muwaadiniin weeye qaarna muwaadiniin maaha dadka aan madaxweynihi ra-iisul wasaaraha noqon karin muwaadiniin maaha waa sab maxaa la yidhaha citizen waa muwaadiniin wey labadan markii meesha ay yimaadaan laba qabiiloo waaweyn baa nahay bay leeyihiin niyadooday ku jirtaa maaha wax banaanka yaalla qof walba maskaxdiisay ku jirtaa taa weeye midda wax kharibaysa habdhaqankaas khariban oo qabyaalada ah oo dalkan baabi'iyey oo muxuu ahay adduunka naga reebay kaa weeye inta kalena waa A iyo B iyo C waa tertiary waxa weeye secondary weeye waa waxyaalo hoosoo la farsamayn karo weeye laakiin midda ugu weyn taa weeye ilaa taa la dhaafana nin qabiil lagu soo qoray adeer dalkaan ma hogaamin karayo aad baa umahadsan tahay garyaqaan Sakariye waad maqlaysaa dooda madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaafaya taariikhay noqotay waa 20kii sano la soo dhaafay waa taagneed waa soo noqnoqotaa mashaakilaadka la soo hadal qaadana dastuurka qayb ka ah inuusan awoodihii kala cadaynayn sida xildhibaan Cabdirasaaqba uu muujiyay maxaa ka jira oo aad ka leedahay dooda ah marka dastuurkan Soomaaliya waa dastuur dib u heshiisiineed oo qaabka loo abuurayba ay tahay in awoodaha la wada siiyo xafiisyadoo dhan oo ay wax walba ka wada tashadaan mashaakilkan halka uu ka imaanayo dooda maxaa ka leedahay intaan aan bal aadi inkastoo aan jeclaa maadaama waqtigu cariiri nagu yahay tan nagu soo hadlay inkastoo aan jeclaa arrin sameyga ka hadlay in aan xoogaa aan meel yar ka fiiriyo Zakariya hadaatu wuxuu yiri dadku wuxuu ka taagan yahay yiri in madaxweynaha oo accountant xisaabiye ah iyo ra'iisul wasaaraha oo engineer ah ayuu dhibka ka taagan yahay siyaasadda u bislayn marka uu anima u sii fasirayay laakiin macnaheedu ay tahay dad siyaasadda u siyaasiyiin oo siyaasadda u bisla ayaa habboon siyaasadda inay ka hadlaan sidaa daraaddeed ama walaa ku halqabsanayo samigay saaxiibkeed sharciga iyo marka laga hadlaayana waxaa ku habboon dad ehel oo xaqo sharciga yaqaanani ka hadlaa sababta aan leeyahay waxay tahay samigay Zakariya wuxuu yiri in labadaba waa wada qaldan yihiin aan yaqaanadan ma ogola oo laba waaye markana soo celi waqtiga cariiri garyaqaan waqtigan haya waa soo noqon hadalnaha garyaqaanada iyo maxkamaduhu iyo dadka caqliga leh iyo odayada dhaqan ma ogola laba qofood oo isqabsatay in la yiraahdo labadaba waa gardareen Zakariya xusuusno labada qof qaldan oo aadi sameynayso oo jidkiisa ka leexday qofna jidkiisa ku taagan yahay saaxiibkii Zakariya waxaa fiican inuu noqdo maadaama xildhibaan ka soo noqo marka Zakariya uu dhameystay doodiisii soo gudbo garyaqaan ka soo gudubtaa ka soo soco marka soo dhaqaa Soomaaliya wuu cad yahay qodobadiisana way cad yihiin waxaana badanaaba Soomaaliya isku qabsadaan madaxda Soomaalida kiliir la isku qabsadaan awood ziyaadsi haddaan qeexay qodobada dhan haddaan wada qeexado qodobka haddii aad fiirsada ugu dambeeyo oo inoo jilci awood siyaadinta maxaad ula jeedaa inoo jilci baltaa marka awood siyaadsi mid kasta wuxuu rabaa xuduudii qaanuunka u tilmaamay ee qodobada ay ku caddaayeen inuu inta ka gudbo oo isticmaalo xuduud kale hadda markii aan soo qaadano taliska nabad sugidda oo kale iyo xuuraanta markii aan soo qaadano sharci looma samayn in la isku qabsado waxaa keena baarlamaanka mas-uuliyaddaas kale baarlamaanka mas-uuliyaddaas gabay dastuurka waxaan ku tilmaamnay laakiin xeeraa raba baarlamaan inuu ka soo saaro hadda waxaa laga wada hadlaya dowladda marka labada xildhibaan aan ku celiyo ayagoo soo koobaya inay sharcigoodii intaadan ku celin muxdiin raalliha intaadan ku celin qodobka 103 ee xukuumadda xalgaarsiinta waa goran yahay hal la akriyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada waxay sii wadayaan awoodda wasaaradaha iyo xilka iyo wasaaradaha sii wadayaan ilaa ra'iisul wasaare kale laga soo dhaarinayo shaqada day to day ma joogsanayso maaha in la yidhaahdo dowladda waa xilgaarsiin waxba ma qabanayso ha kala tagaan haddii waxba qabanayso waaya waqtigan haya garyaqaan Sakariya aadaad u mahadsan tahay laba su'aalo muhiim ah inoo hartay waxaan ka codsanayaa martidu inay jawaabaha soo koobaan waxaan u imaanaynaa khilaafka hadda waa kan waa jiraa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihi waa is hayaan maxaa kaloo hay'ad dawladeed oo sharciyad haysato hartay oo arrintan soo kala dhex gali karaysa Sakariya adiga aan kugu bilaabo
waxa weeye labada odayoo meesha ugu sarreeyay oo sharciga inay iyagu fuliyaan oo ka dambeeyaan ay ahayd hadday isqabsadaan waxa weeye cid kale oo sharci kala goyn kartaa ma jirto waxay u taallaa arrintaasi marka muxuu ahaa baarlamaanka iyo dowladaha soomaaliyeed oo hawshaan iskale baarlamaanku muxuu talo ku yeelan karaa iyo talo ah arrinkan xildhibaan karaa muxuu ahaa dalkan sidii dalkan wuxuu ku jira xaalad critical ah hawshaan doorashada ha la qabto gabadhaanna ha loo daayo muxuu ahaa hay-adaha dastuuriga ah hay-addii ku shaqada lahayd buu u yeerahayaa wuxuu leeyahay shaqadaan soo qabo gabadhaan cid soo baar labadaan odayna waxaa laleeyahay shaqadiina qabsada shaqadaan aada umahadsanta xildhibaan cabdirasaaq adoo noo soo koobaya baarlamaanku wax kaalina ma uga furan tahay arrinkan hadda taagan ee khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha aniga waxay ila tahay baarlamaanka waktigiisa waa dhamaaday hay-ad sharciyeysan oo hadda soo faragashan karta ma jirto waxa keliya oo haray waxa waaye in yacni wadahadal arrinta lagu dhameeyo laakiin hay-ad nasiib daro waktigii muddadii uu madaxweyne farmaajo jooga waxay ahayd inuu dhiso hay-adda dastuurka hay-addii mudane cabdirasaaq waktiga aada noo haya maxkamadii dastuuriga in la dhisay ahayd iyada ayay ahaan lahayd midda keliya oo soo faragashan karta arrinkan hadda cid sharciyan baarlamaanka uu leeyahay zakariya wuu soo faragashan karaana waktigiisi waa dhamaaday wadahadal u baaharaan isleeyahay aniga laakiin hay-ad isla adiga aan kugu celiyo su-aasha kale adoo noo soo koobaya waktigaa naga dhacaya walaac ma kugu haysaa khilaafkani inuu doorashadii soomaaliya hooshii doorashada ay socotay inuu saameeyo dib u riixo dabcan walaac weyn ay ugu haysaa ummadda soomaaliyeed oo dhan bay ku haysaa khilaafka in si dhaqsaa loo xaliyana yani waa ummadda soomaaliyeed oo dhan baa sugayso waxa la raba tanaasul iyo arrimahan inuu yani khilaafkan yareeyana waa dee ninka hadda madaxweynaha sheeganayo oo waktigiisa dhamaaday ayaa la rabaa inuu tanaasul badan sameeyo si doorashada ay u dhacdo ra-iisul wasaarahana way ka go-an tahay in doorasho ay dhacdo shaqadeedana waa ku jiri waana arrin lagu aaminay ummadana ku aamintay international communitygana ay raalli uga noqotay madaxweynahana uu ku wareejiyey marka hawshiisa ha qabsadaan leeyahay khilaafkan hala soo yareeyo waa mahadsantahay xildhibaan sakariye dhowr irbiriqsi ugu dambeyn talada ugu dambeysa xalka ugu kooban oo ugu fudud maxaad u arkaysaa xalka ugu fudud xildhibaan sakariye ma hayno codkiisa garyaqaan sakariye adiga aan ku imaado marka xalka ugu dambeeya adoo ilbiriqsiyo kusoo koobaya maxaa u aragtaa horta hore halka ugu dambeeya maxkamadda dastuuriga markasta iskale shaqadaan oo kale baarlamaan iskama laha dadka ku riyoonayana baarlamaanka inay iska dhaafaan hadda waxaa dhiman keliya inay labada nin ay arrinta soo dejiyaan qof kastana awoodda qaanuunka uu siinayo uu aqbalo oo uu ku dhaqmo qofka kalena awoodda qaanuunka siinayo uu u ogolaado laakiin waxaan ku darsanayaa baarlamaanka waktigiisii waa dhammaaday vacuumka la sheegayana oo la ilaalinayo insaan looma ilaaliyo waa inaana walaac kale oo cusub baarlamaanka ayna furin haddii ay furaanna ha ogaadaan ayaga in ay yihiin kuwa dabka sii shida baarlamaanka aad baad u mahadsan tahay garyaqaan sakariye aad baad u mahadsan tahay garyaqaan sakariye dhegeystayaal barnaamijkeenii dooda jimcaha waxaa nagala qayb galaya xildhibaan cabdirasaaq maxamed cumar xildhibaan sakariye maxamuud xaaji cabdi iyo garyaqaan sakariye waxaanu ku eegeynay khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya barnaamijkeenii dooda jimcaha ee galabtana intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa